aqal Soomaaliga niyo wuxuu ahaa wax aad u fiican oo maaragtay u qiimo badan markii la fiiriyo bulshadii hore reemiga iyo noloshoodii bal maxaa ka garanaysaa adigu bulshada mise adigu ku dhalatay mise waxa ku dhalatay guryo beelaha safiito aad u kulul anu kuma dhalan horta waxaan u aqal baan ku dhashay iyo meel fiican oo saxa aniga waa arkaysaa maskaxda nadiifka say u tahay arkaysaa meel saxa waxaan ku dhashay aqalka horta qaybo badan buu kala leeyahay oo si kala qaybsamaa wuxuu u qaybsan 3 qaybood 4 qaybood oo waaweyn si la yiraahdo raradii udbihii dhigihii iyo xargihii markaas aqalku uu kala qaybsanayo waa kala taqaanaa balse adigu ahaanta waliba ma dhisto mise isku daydo anigu markii hooyo ay dhisaysan la caawin jiray udbahan u qodi jiray maxaa yeelay ba dumarka badana Soomaaliyeed u yaqaan aqalka dhisaan inkastoo hadda garab rarta iska soo baxdayo marka aqalka ka waran maxaa loo kala yaqaanay xagga rarada maxaa loo kala yaqaanay dhigaha sidoo kale udbaha awrta aysha lagu raro xarka awrta lagu raro maxaa loo kala yaqaan bal hadda naga siisid hatta neew saacad ma maanta maxaa yeelay horta aqalka waxa loo yaqaan qaybo badan mu ka tirsanaa meesha ugu koreysaan ka bilaabaya maadaama Soomaaliyeed ay meel ka soo saaca ma jirto rarada horta baan ka bilaabay rarada waa 7 raro ayaa sida qaalibka la sheegaa dadna 6 way sheegaan laakiin sida ugu badan waa 7 raro rarada marka ku sama kala macaawaya labada gees dadbiina la yiraahdaa midka ugu dambeeyo waxa la yiraahdaa dabageli ama la yiraahdaa ama aqalka gaal laga geliyo labada geesna waxa laga sii geliyaa ana laba feergelis korna waxa laga saaraa laba dul saar iyo dhax ka tuur ee Soomaalidu saas u isticmaalaan hadii marka aan qayb kamid ah kaaga sii taabto marka xarga tafawo jira xarag kala rug la yaabuu jira xarag kale cayn la yaabuu jira udbaho kala dan ku saabto udba la yaa laash aqalka laba hor u rayso waxa la yaa laba kaad baa la yiraahdaa aqalka dhexdiisa mid laga taa wax jira la yaa tiir la yaa aqalka lagu celiyaa jira waxa jira qayb aqalka ka tabaan oo ribaadiyaha marka la yaabayso oo sidoo hore ayagoo la hindisin marka tabaan wadan soo gaar ee hindisano qaybna taraara ayaa isticmaalaan dharka ay saartaan raashinka saartaan oo aboorkaba iskaga celiyaan marka aqalki wuxuu aad iyo aad u xigmadaysan mararka qaar ay fiirsada wax xigmadiisa la yaabayo aqal wuxuu aad u muhiim aqal ka war hadda maxaa loo bedelaa islaada aqalkii raradii maxaa loo bedelay aqalkii raradii waxa loo bedelay baco in bac la tasho raarkii xataa midkii googo wax yar ka haray in bac lagu sii dheereeyo asagii litirkii in dabka lagu shito mararka qaar waxa ka nin kuwa aqalkii rifaayo raba in dabkii ku hor uga dhigtaan oo ay ku shitaan marka aqalkii waa xasoo dagaalo badan baa ku soo wajahan waa dagaal badan ma lagu qaaday marka cirib goyn buu ku dhow yahay hadda dagaalada Soomaalida haasato wax u badan yihiin inay yihiin aqal baa loo jiray bac ka samaysan oo badan cashada u badan marka maadaama hadda aqalkii waa la waayay waxaan wuuna dhamaaday wuu tabar go'ay marka sida total ahaan si soo dhanba waa go'aba qaab ahaan buu dhamaaday meeshana marka kuma jiro aqalkiisa dhan